فلا ظلها دان ولو طال أمنها وسل عن هواها كل من ودها خطب وسل عن هواها كل من ودها خطب ومن كان في هذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل للذهب ومن كان فيها ذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل للذهب ومن كان فيها ذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل للذهب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عنا ونكسن داوديال ميل كسو joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeenii aynu ugu magac darnay weli ma u fiirsatay iyo xalqadiisii afraad ama barnaamijkii afraad saddexdii barnaamij hore waxaanu kaga waranay arrimo dadku inta badan ay ilowsan yihiin laakiin mujtamaca dhexdiisa yaala hadii loo fiirsadana qofka ay ugu kordhayso duruus iyo cibar iyo waanooyin barnaamijkan maanta waxaanu ku soo qaadananaa qodob muhiim ah oo inta badan dadka dhexdooda ka dhaca dadkuna hadii uu dhaco waxyaalaha la isku nooco kamid ah qodobkaasi waxa weeyaan qodobka beenta waxa laga yaabaa waxyaalo badan oo hadii la miisaamo been ah inay dadku u yaqaanaan inaanay been ahayn oo ay kamid tahay qofka isagoo telefoon ku hadlaya inuu yiraahdo isagoo meeshii u tagayay aanu dhaweyn inuu yiraahdo waan idin soo dhawahay yar baan idin soo jiraa ama waan idin la taaganahay laga yaabo inay saacad kadib ama ay markaasi in ka badan ku qaadato beentu waa maxay imse qaybood bay qaybsataa islaamku sidoo uga hadlay been la ogol yahay ma jirtaa mujtamaca day beentu ku farabadato dhinacyo ayuu mujtamacu u jeedsanaya u dhaqaaqaya ayaa kamid ah qodobadaynu barnaamijkeena insha Allah ta'ala ku soo qaadan doono daawadayaasha ayaan su'aalo weydiinay su'aalahaas daawadayaashu ka jawaabeen beenta siday u arkaan telefoonka markay ku hadlayeen been sheegaan maalintii inay dib u tiriyaan beenta ku hadleen habeen iyo maalin marka la isku daro iyo waxyaalo la mid ah mar dhow baad wada daawan doontaan laakiin inta ka horeysa beentu waxay kamid tahay waxyaalaha islaamku aadka uga digay diinta islaamku meel adag ayay ka istaagtay nabiga kaleey salaatu wasalaam markii la weydiiyay qofka muuminkii been ma sheegaa may buuri ma zinaystaa la weydiiyay su'aalo kale noocaas oo kale nabigu haabo ku wada jawaabay markii la soo gaaray ereyga beenta ee la yiri been ma sheegaa qofka muuminkii been ma sheego ay waa calaamado ka mamnuuca qofka muslimka ama qofka muuminka ah ilaahay rumaysan subhanahu wa ta'ala inuu been sheego waxa laga yaabaa inaynu in fara badan hadaladeena ku qurxino hadal beena inagoo dadka ka qoslinana ama dood ku adkaynana waxyaalo la inoo diidan yahay inaynu sameeyno nabiga kaleey salaatu wasalaam culimada inoo wacdiday laakiin nabigu wuxuu ku tilmaamay calaamadaha qofka munaafiqa ah munaafiqu ma aha arrin sahla qofku hadii calaamadaha munaafiqa ka muuqdaan micnaheedu waxa weeyaan isaga iyo ilaahay way kala go'een innal munaafiqiina fi darki al-asfali min an-nar ayuu ilaahay subhanahu wa ta'ala munaafiqiintu naarta waxay ka galayaan jaranjarada ugu hooseysa oo ah jaranjarada dheecaanka iyo waxa ka dhalaalay dadka la cadaabayo dhan ay ku ururayaan ayuu munaafiqu fadhiisanaya wuxuu ka sii hooseynaya kaafirka iyo qofkan ilaahay rumay subhanahu wa ta'ala munaafiq waa maxay munaafiq waxa weeyaan qof afka wuxuu ka sheegayo uurku wuxuu ku haystaa ay kala duwan yihiin calaamadu leeyahay iyo tilmaamo lagu garan karo tilmaamaha waxa kamid ah وإذا حدث كذب بالنبي عليه الصلاة والسلام مركو ورميه أيو بين كل هذا الكيس بينت موح قياسا با والله أرن كرو وح نوع عين نوع عصب بين ليلا مثل بينت وحويان وح كستو أو أنصح أهين أو قف كهذا سي علماء ينوت المامين قف وحويان وح كستو أو أنصح أهين أو أنرون أهين أو قف كهذا لويان علماء هراء الإسلام كنا آد بي وجدين النبي عليه الصلاة والسلام معلن معلمها كميدا أيها حصام ريكبر ilma yar dhashay u yeedhisa oo kula kaale timir baan ku siinayaa wuxuu ku yiri marrun baa timir baad siinaysa waxa ku tiri nabiga ilaahay waxa hadii aanad siiseen buu ku yiri ilaahay agtiisa been baa lagaaga qoray kelmad beena ayaa ilaahay agtiisa lagaaga qoray ilaahayna tabaaraka wa tacaala wuxuu ka digay dadka beenaalayaasha ayuu ka digay saasoo kale nabigeenu wuxuu yiri salaatu wasalaam qofku beenta iska ilaaliya waxaan idin kala digayaa idinka iyo beenta fa inal kadhiba yahdi ila al-fujur wa inal fujur yahdi ila an-nar beentu waxay kugu hanuunaysaa madax adkaan iyo cisyaan iyo dambi walaaqasho ay kugu hanuuninaysaa oo ay ku geenaysaa ay kugu horkacaysa hadaa dambi walaaqatana maxay noo haray hadii dambi walaaqanana yahdi ila an-nar
naarta ayaynu toos markaa u tegaynaa. markaa beentu waxay ka mid tahay waxyaaluhu ilaahay neceb yahay. qofku hadduu ku dadaalo inuu hadalladiisa beenta ku daro, markuu warramayo beenu sheego, u naxnaaxiyo hadalka iyo waxa la midka ah, ma joojiyo ilaa ilaahay agtiisa looga qoro beenaale. sidaasoo kale waxyaaluhu ilaahay nacdalay waxaa ka mid ah dadka beenaalayaasha ah ayuu ilaahay nacdalay. almalcuunuun fi lqur'aan wasunna, dadka la nacdalay ee qur'aanka iyo sunnaha ku soo arooray, ibliis baa kow ka ah cidda la nacdalay, yuhuud baa ku xigta, beenaalayaashaa ku xiga. markaa qofka been hadduu sheego khatar buu ugu sugan yahay inuu ka go-o xidhiirku ilaahay la leeyahay subxaanahu wa tacaala. markaa beentu nolosha ayay baabi'isaa, jiritaanka qofkay baabi'isaa, oo waxay ka qaataa inay dadku rumaystaan iyo mistaaqiyadiisa ka qaata. innaga mushkiladaha ina haysta waxaa ka mid ah inaynu been xoog sheegno. telefoonadaas soo baxay ayaa qayb weyn ka ah in markaasi dadku ay been sheegaan, isagoon meeshii usoo dhaweyn uu yidhahdo waan idiin soo dhawahay, isagoon markaasi magaalada jooga uu yidhaahdo ma joogo. ay marar fara badan dhacdo qofka tusaale ahaan magaalada Hargeysa jooga ayaa qof kale uu been u sheegay ku odhanaya ma joogo magaalada, waan ka baxay, Burcaan tagay, Berberaan tagay, Hargeysa Burcaan tagay, Berberaan tagay, ama Booramaan jooga. okay, isagoo sidaa kule ayaa marar badan waxaa dhacday qofkii uu kulahaa magaalada waa ka maqanay inay iska soo horbaxaan, isagoo telefoonku aan leeyahay meel iskaga soo baxaan, qofkii uu la hadlayay beenta u sheegay. marka labadaa qof sidee bay goordhow isku aamini karaan, sidee bay markaasi u noqon karaan dad walaaltinimadooda u xoogeysatay? haddaynaan mushkiladda beenta iska ilaalin waxa meesha ka baxaysa walaaltinimadeena. haddaynaan mushkiladda beenta iska ilaalin waxa barakada ilaahay ka qaadaya wax kala iibsiga iyo jiritaanka dawladda, jiritaanka nidaamyada maamul ay dadku samaysteen. madaxdu hadday dadkooga been u sheegaan dadku rumaysan maayaan beentaas, waayo ilaahay baa tabaaraka wa tacaala beenta neceb. ilaahay quluubta dadkana gelin maayo inay hadallo beena qaataan. dadka hadday mar iyo laba rumaystaan, mar saddexaad iyo afraad way adag tahay inay markaasi ay beenta rumaystaan. marka waxyaalaha barnaamijkeena fariinta uu sida ayaa waxay tahay inaynu beenta iska ilaalino. imaamkii weynaa la oran jiray Imaam al-Bukhari ayaa maalmaha kamid loo sheegay xadiis lagu yiri xadiiskaasi waxa haya ninka hebel la yiraahdo oo magaalo Hiblaayo degan. deedna safar dheer buu galay, dameerkiisa yaraa buu ka haystay, muddo dheer buu sii socday, waxay ku qaadatay in bil ku dhow inuu sii socdo. maalintii ninkii uu gaadhay ayaa ficilkii koobaad uu kula kulmay waxa ninkii oo been sheegay. wuxuu arkay ninkii oo weel maran haysta oo neef xoolaa u yeeraya oo uu doonay inuu qabto ama uu xidho ama uu hagaajiyo. deedna wuxuu ninkii hebel la yiraahdo maadiga ahaa buu yiri. markaasuu xadiiska hebel xadiiska noocaas maadiga ahaa. markaasuu yiri niyadda wuxuu iska yiri ninkan xoolaha been u sheegaya, dadkana soo uma fududayna been u sheegto. xoolii baa been u sheegaya, dadkana wuu sheegi karaa. saas darteed buu iskaga soo noqday. safarkii dheeraa ee uu galay buu markaasi wuxuu ku kansalay oo uu ku mamnuucay oo ku joojiyay ninka beenta sheegay. bal daawadayaal waxaan idin tusayaa dadku sidee u yaqaanaan beenta. bal daawadayaasha ila daawada waxay yiraahdaan kadibna isku soo noqono. telefoon ma seetay? telefoon haa waan sitaa. ka hor telefoonka adoo ka hadlaya weli been ma sheegtay? may beenta waan iska ilaaliyaa had iyo jeer, waayo ilaahay baa ku eegaysa. adigoo meeshii aad ballanta ku lahayd ka fog ma tiri waan soo socdaa ma idhaahdo. waan soo socdaa ma idhaahdo, laakiin waan kuu soo dhawahay ma idhaahdo. ma idhaahdo waan iska ilaaliyaa. carruurtaada weli waxa inta ugu ballan qaaday wixii ma keen weydo taa lafteeda hadday matalan baa ay dhacdaba waan ka raali geliyaa. waan ka raali geliyaa. ma tirin kartaa maalintii inta eraya been kaaga dhacday? maalintii inta eraya been iga dhacda wallaahi dee haddaan isku celiyo 2-3 meelaha ayuu baan filayaa inay noqonayso. maalin kasta maad qiimaysaa? maalin kasta dee haddaan eego, waayo qofku waa inuu yoomiyan u xisaabtamaa, maalin iyo habeenba waa inuu qofku xisaabtamaa. wax weli ilaahay ballan had la gashay oo haddana had ka soo bixi weyday ma xasuustaa? wallaahi runtii waan xasuustaa. waxaa ka mid ah inaan had iyo jeer xagga khayrka aan aad ugu dadaalo. magacaygu waa Aadan Mataan Xasan. waxaad iga warataa telefoon waad haysataa sabab? telefoon si fiican. weli telefoonka intaad haysatay imsa sanadiis? telefoonka waxaan haystay dee intii uu jiray la bilaabayba waan sitay. 10 sano. adigu intii la bilaabay weli kelmado beena ma ka sheegay? kelmado beena dee qof aan ka sheegin ma jiro. anigu waan ka sheegay. waxa ka mid ah kelmadaha beenta dee tawaaweyn ma aha, halkii aan dee ku socday oo aanan gaarin. salahan anigoo talo sababtoo kale dee ku soo socdo qof igu sugayo anoo cable-ko kala maraya hawaniga aan yar u jira
ده هو بين بين marka ma ka toobad keentaa kuwaas oo kale misaad jeer nolosha ما والله استغفارت انت بدن وان markaan xasuusto kalmadii iga dhacaya istighfar baan ilaahay weydiistay deena dambi tii waan ogaadaa waan ka toobad keenay waxyaabo laga toobad keenay kamid xaas ma leedahay xaasa waan leeyahay been isaga ma u sheegtay xaas ما يتاوان ka ilaaliya beenta oo deerku dumay dad been shaqo magacay waxa la Mukhtaar Yusuf Xasan telefoon ma haysataa telefoon waan haystaa ilaa imsa sanad haysatay telefoon adigu wadanka inta badan ma joogo laakiin waxaan isticmaalay muddo dheer baan isticmaalay ilaa 6 sano waan isticmaalay marka telefoon ku hadlaso kelmado been ma ku dartaa hadalkaaga ama marka caadiyan u sheekeynaysa sheekada caadiga sometimes ama ku qurxinaya ama ku qoslinaya sometimes way ku jirtaa sometimes ma ku daraysaa qof aad u sheegaysaa waxaan sameynaya sometimes lama qofna ma oran karo horta weligii been ma sheegin wad ku qurxinaysaa beentii uu sheegay qofku si laakiin beenu way kala duwan beenna waa been de weyn oo kugu noqonaysa dib ma ogtay beenna waa qof laba qofood kaftamaysaan oo kale warsanaysan oo kale beentu way kala darantay marka beenaha yar yar qof walba uu sheegaa ma tirin kartaa maalintii inta beena yar yar aad sheegtay ama mid weyn marmarad ka dhufato beenta horta inta badan ma sheego qof yar yar ma tirin kartaa inta erey been ku dhexdo adu ma tirin kartaa adiga fiidina ma tirin karaa ma kuma badnay habeenkii markaad sii seexanayso miyaad xisaabtantaa noloshaada oo tiraahdaa maanta intaas soo ereyo beenaad sheegtay maanta intaas soo ereyo gafaad gashay maanta intaas soo ereyo taamiyaad samaysaa weli ma odhan intaasoo beenaad sheegtay laakiin waxaa maanta soo qabatay waxaa ku harsan maxaad qaban kartaa inta badan horta adduunyada iskaga badanay xagga adduunyada loo badan yahay marka xisaabtii maanta maxaad hawl qabatay maxaa kugu soo kordhay maxaad biri qabataa waxyaalahaas ka xisaabtan waalidkaaga xaaskaaga ama haddaad caruur leedahay ama haddaad caruurtaad walaalaatiin wax beenood cadoo inta taa ugu sheegtay adoo wax kaga gabanaya weli taa ma xasuusan boqolaalbadu sheegsa waxaas sameynay way waan sameynay waxay si waan ku siinaya wada oranaysaa hadhowna ya marka damiyadu adoon film bas arkaysa boqolaal waxa wala oray waxa soo baxay waan ku keenaya deetana haddana hadhowna amba wadi laawaysa amba si kale qof marka hawsha kugu badantay magacaygu waxa weeye Mukhtaar Cumar Cali weligaa been ma sheegtay haa waan sheegay laakiin ma badno laakiin kumana dadaalinta badan inaan sheego inaan islaaliyo waan jecelahay laakiin se waan sheegaa mararka qaarkood waayo adoo telefoon bas saaran baad oran kartaa waan ka soo degay haa waan soo socdaa waan kugu dhawey halkaasan maraya baad oran kartaa berigaana telefoonka haysanay imika telefoon hasta keebad xagga beenta u yar durugsan imika intaan telefoonka isticmaalo haa habeenkii dib u qiimaysaa inta yaree beenad ku hadashay ما يديبوا مقيمة والله لكن سوي والله إلا حد ويقو بدن تيجي وضعنا كرتها ها ما كفتن كانت راعي سايو أنت بدن كفتن كانت كمعاني ساشة كذا مركز شيكين بس مركز تليفون كوكلو هاد قفك بلانو قاعدي أنت وإحنا نقول كرتها تليفون كي يعني جا واحد سمين كرتها يمكن هذيك أو حلاقة يا ميل قفكي ودو وسوتشرة وصوص عدا مركز كل صهر الله واحد وضعنا كرتها وهالكذا مرة سامر كل جوده هذا هالك كودو ينتشكتها مهم موقتي ما يو كودو يبادرنا الساعة halkeed maraysaa waxba kuma jiro intaas weeyaan farax waa Ismaaciil maalintii imise kelmadood baad ku hadashaa ma garan kartaa markaad sheekeynayso haddaad qiyaasto maalintii haddii aan qiyaaso ilaa 100 kelmadood oo ku hadlay ha aad ku hadashaa marka waxa weeyaan inta badan oo aamsan inta badan ha waa mar aan wala shaqeynayo iyo mar meelaha marka jaaniska loo helo waa gali ka dambe u sheekada biyo ku dhex jirtaa weli hadal siraado ma lahayn maanta been baad sheegtay adoo ma badna ha laakiin inta ugu badan anigu markaan aniga shakhsi ahaantayda iska warramayo bulshada wixii wanaagsan ma ku wacyi geliya marka telefoonka aad seetaa marmar been wuxuu u sababay halka baan joogaa adigu meeshii joogin been ma sheeg ma taa horta aad baan u xadidaa oo aad baa iskaga ilaaliya waayo waxna wax kugu soo noqon doona Soomaaliduna ma ahaan jirtay waran kugu soo noqon doona waxba lama sii rideeyo marka waxaan leeyahay ilaahay ha laga yaabo runtana ha la sheego wixii aanu cadaabta ku mutaysanahay la iska ilaaliyo bulshadana waxaan leeyahay tan waa laga socdaa laga sabeeyaa suuramada aakhira la mari cidina seegina safkii nabi raaciisa tiro naga yeel intii soontay salaaday daraada u sujuudiday inuu naga yeel inkastoo qafqaflaysood kulba qorku wareegto soo qabays tirahdana qayd yaro leena saariya qaaday ba ka dambe qaadkana sida loo cuni maayo qaxqax loo oran maayo qabri bayna sugaya qiyaama inaga dambeeyo baculla qabriga qiyaas ma soconna ilaahu qaadka la waayo qodub soo dhici waaya dadarto ay qalashay isaga aabba yaaba arrinkiisa la waayo sigaarku uu qoyo qasaaro uu la kulma dumarka qawadaya laga qariyo biilkiiba ku quusan lahaa inta qaadka ku ruugtaan qoys dhanba quudan lahaa qaadirow allah hayow naga qabad daroogadan amiin ballan yaasiin
nagib nagib waxaad iga warantaa telefoon weyn oo smartphone ka waran intaad been sheegtaa telefoonka markaad ku hadlayso waan kuu soo dhowahay adigoo meel durugsanay wallaahi waxaa jira waxyaabo loo beeraa ma jiro laakiin accidental bay u dhacdaa ma marna tan awar waan kuu soo dhoway adigoo meel kale maraya laakiin kuma jirta inta ma qofka inuu is dhahdo directly been u sheeg haddii marka masalan suuqoo kale adoo jooga jigjigeeroo kale lagala soo oo tiraado yar baan kuu soo jiray weli wax saasa ma xasuusataa telefoon ka sheegtay been saa u weydiiyey oo dad may ma xasuusto carruurtaada weli beenaad u sheegtay ma xasuusto may inta badan waxaan isku dayaa inaan runta u sheego oon waxba ka qarinaa taan ku soo noqonaya hadhowaan waxaan ku samaynayaa at least waa inaan 50% aan ka fuliyaa si uu aaminay ilmihii inaan run sheegay wad magacaaga sheeg isla magacaagu waa maxamed cabdikhaliid maxamed ka waran mushkilada telefoonka dadku weli telefoonka dadku been bay ku sheegaan iyagoon meesha joogin waan joogaa idhaahdo baarinta lafteeda taa lafteeda waxa weeye waxyaalaha beentaan dadka waa qolu been tahayba been tahay dadku ma moodayaan in qof been sheegayo isagoo soo socdaa biriish ku koray waxaan joogaa daabshil hoostiis marka waana been dadku waxaad moodaa inaan u haysanay beenta kelmadaas marka waxyaalo badan cilmadu aad uga wacyigelin dadka beenteeda yar baa way ku rida marka taasoo kale way fara badan tahay aad bay badan tahay ninku carruurtiisa u sheegay gurigiisa u sheegaya waxyaalaha qoyska maslaxadda carruurta marka waxyaalo badan marka qoyska ay u sheegayso aad ku dhaqayso xitaa shaacada ku banaysa way jirtaa laakiin waxyaalo dhaqan ahaan hadday kaa noqdaan caadaysta noqonaysa hadday beenaha caadi noqonaysa marka dambe waa hagaag daawadayaal waxaan u malaynayaa inaad wada fahanteen fariinta ay dadku sidaan qof walbaaba beenta uu iska ilaaliya waa sax laakiin si indirect si aan toos ahayn ayaa waxay samaysaa inay beenta u soo gasho ama isagoo telefoon ku hadlaya ama isagoo qof u ballan qaadaya ama isagoo carruurtiisa u ballan qaadaya ama isagoo markaasi xaaskiisa u ballan qaadaya oo ballan qaadka fulinaynin iyo waxyaalo badan oo lamid ah marka qofka muslimka ah waxyaalaha la gudboon waxaa ka mid ah inuu qofku beenta ka digtoonaado intuu ka digtoonaan karo oo xasuusto marka uu been sheegayo inuu ilaahay arkayo oo xasuusto markuu been sheegayo inuu markaasi uu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu markaasi ilaahay ciqaabi doono haddii uu beentaasi kusii socdo beentu calaamadahay leedahay waxaa ka mid ah qofku markuu been sheegayo psychologigu wuxuu yidhaahdaa qofku markuu been sheegayo qofku indhihiisa si toose qofka uu beenta u sheegayo uma waajo ee jeejeedsi dhinaca indhaha ah oonu qofka wejiga siin karayn ayuu sameeyaa waxaa kaloo yidhahdaan kelimaadku ku hadlaya oo kelimaad kooban bay noqdaan uu soo celcelinayo kelmad buu ku hadlayaa 5-6 jeer baa laga yaabaa kelmadaasi inuu markaasi hadalkiisa kelmad keliya ay kusoo noqnoqoto waa nooc ka mid ah calaamadaha lagu garto ay waxyaalaha lagu garto waxaa ka mid ah qofka tensionkiisa iyo dareenkiisu inuu kacsan yahay markuu cid waliba uu ixtiraamay uu doonayo inuu been u sheego cid uu bariinsaday oo markaa uu beenta la bartay maaha cid uu been u sheegayo inkastoo dadka qaar xariif ku yihiin beenta oo markay sheegayaan aad odhanayso siduu iskaga oohinayo ama siduu markaasi dareen murugale isku gelinayo aad odhanayso run buu qofkani sheegaya haddana waxay yidhahdeen culimada psychologiga qofka hadalka uu soo celceliyaa dareenkiisa ayuu kicay had iyo jeer waxyaalaha beenta aan lagu garan waayin waxaa ka mid ah yidhahdeen qofka hadday dhacdo uu ka warramayo dhacdadaasi qofku uu iska saara xataa hadduu meesha joogo wuxuu cid kale u eedda saaraya hadduu mas-uul yahay ama hadduu shaqaale yahay ama hadduu maaragtay meel wax ka dhaceen uu joogo cid kale u odhanaya ciddaasaasa ahayd ciddaa kalaasa ahayd kaa kale halkaasaa kasoo bilaabay kaasaasa ahayd kaasaasa ahayd dabeedna waxaa laga yaabaa isagu inuu had iyo jeer isku dhigayo qofkii doonaya inuu waxaa xaliyo inuu isku dhigayo ayaa laga yaabaa waxaa kaloo beenta hadallada calaamadaha lagu garto ka mid ah ayay culimada psychologigu yidhahdeen inuu qofku markaasi dadka istikfaaf bilaakhariin inuu dadka kale u yaraysto qofka kale uu eedda dusha uga tuurayo oo hadduu doono kaba awood badan hadduu doono kaba caqli badan hadduu doono kaba been yar hadduu doono kaba maaragtay aqoon badan inuu markaasi dusha uga tuuro eedayn oo uu ka dhigo markaasi wax aan jirin marka waa calaamadaha lagu garta yidhahdeen maxaa hadalka beentu goormay badataa beentu mararkay badata waxaa ka mid ah qofku inuu hadalka farabadiyo maalintii imise kelmadood baad ku hadashaa ma garan kartaa markaad sheekeynayso haddaad qiyaasto maalintii haddii aan qiyaaso ilaa dee 100 kelmadood aan ku hadlaya ها 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 marka waxa weeyaan inta badan oo aamsan inta badan ها way nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wala bakaytum kathiran haddaad ogtihiin waxaan ogahay in fara badan baad ooyi lahaydeen in yarna waad qosli lahaydeen marka hadalka oo la farabadiyaa wuxuu qayb ka yahay inuu markaasi been qofka ku dhaco waxyaalaha mushkiladda inoogu wacan waxaa ka mid ah arrimaha siyaasadda markay dadku ka doodayaan ee cidiba cid taageersan tahay ayaa in fara badan waxaad maqlaysaa qof ceebka saliin ka dhigaya laga yaabo dadku inay waxyaalo kale ku arkeen oo u yaqaanaan
laakiin isagoo ceeb kasalin ka dhigaya telefishinada la soo fadhiisanaya boqolaal erey ku hadlaya boqolaalkaa erey ama kumanaankaa erey ee uu sheegay waxa laga yaabaa inay yaro kooban run ka tahay dadka laftooduna hay markaasi u arkaan inuu qofkaasi yahay qof markaasi been sheegaya waxaan beri dhawey jaraa'idka ka akhriyay maqaal aad cajiib u ah dhowr sano ka hor oo uu qoray xasan cabdi madar qoraaga caanka xasan cabdi madar wuxuu qoray mawduuc ah qofnimo bax qofku dhiig bax baynu maqalay goormuu qofku qofnimadiisu baxda goorta baxaysaa waxa weeye qofku marka uu dadka la hor yimaado waxaan dadku aanay dhegaysan karayn ama aanay aqbali karayn oo markaasi beentaasi qayb ka tahay oo qofku cid kale ku difaacayo ama markaasi uu samaynayo qof walbaaba uu dhimanayaa walaa tasiru waasiratun wisra ukhraa nafna naf kale dembigeega qaadi mayso qofku markaa inuu been sheego waxay ka mid tahay waxyaalaha ilaahay subxaana wa tacaala aynu kaga go-ano ilaahayna inagu ciqaabayo haddaynu beenta iska dayn weyno nolosheenna iibka ayaa beenta ay ku dhex jirtaa ballamaha ayay beenta ku dhex jirtaa wax dhigistii ayay beenta ku dhex jirtaa wax sheegistii ayay beenta ku dhex jirtaa tilmaamidii ayay beenta ku dhex jirtaa hogaamintii ayay beenta ku dhex jirtaa siyaasad matalidii ayay beenta ku dhex jirtaa wax kasta waxaad arkaysaa inay beenti ay beenta ku dhex jirto ilaahayna tabaaraka wa tacaala haddaynu been sheegno waxaynu gacmaha ku hayno ayuu barakada ka qaadaya subxaanahu wa tacaala markaynu qof been u sheegano culimadeenu waxayna idhaha markaad qof been u sheegayso qofkan baad weyneynaysaa ilaahayna waad yaraysanaysaa subxaana wa tacaala qofkanaad beenta u sheegayso ayaa gacanta ku haya markaynu isweydiino ilaahay baa gacanta ku haya ka waran ilaahay tabaaraka wa tacaala qalbigiisaba hadduu inaga qufulo qofka is leedahay wax kaga qaad beenta hadduu qalbigiisaba kaa qufulo erey runa had u sheegto waxaad doonaysa waxa laga yaabaa inuu ilaahay qalbigiisa kugu soo jeediyo waxaad ka doonaysa in uu markaasi kuu fududeeyo marka inaynu beenta iska daynaa waxay ka mid tahay jiritaankeenna waxay ka mid tahay hagaajinta xidhiirka ilaahay la leenahay waxay ka mid tahay hagaajinta xidhiirka aynu mujtamaca la leenahay waxay ka mid tahay barbaarinta aynu ubadkeena barbaarinayno waxay ka mid tahay xidhiirkaynu xaasaskeena la leenahay iyo qoysaskeena waxay ka mid tahay markaasi u samafalka waalidka haddaynu beenta iska dayno ilaahay tabaaraka wa tacaala barakaadkiisa ayuu inoo soo rogayaa maaha idinmaan wacdiin aayado qur-aanna idinmaan sheegin axaadiis nebi idinmaan sheegin culimada intaba inoo sheegtay laakiin anigu waxaan soo ururiyo dhaqankeena waxyaalaha markaynu magaalooyinka aynu ku noolayn dhex marano dadku siday beenta iskugu sheegaan qofku haddaanu been sheegin waxa loo yaqaanaaba qof damiin ah oo caqligiisu aanu aada u badnayn inaynu beenta iska ilaalinaa waxay ka mid tahay inay noloshu inoo sii socoto haddii kale dadku waxay noqonayaan dad iswada neceb dad iswada xanta dad caloosha xumaan iskugu wada haya iyo wixii lamid a fariintaynu sidnaa waxa weeye bisha barakaysan ee ramadaan iyo bilaha la midka ee khayrka badan aynu uga faa'iidaysano inaynu markaasi iska dayno beenta iyo acmaasha xunxun aynu samayno aad baad umahadsantihin daawadayaal dhammaantiin waxaan idinkaga teganaa salaanta islaamka iyo inaka oo ereyga beenta ah iska dhaafnay xisaabina maalintii hadaladaynu ku hadalnay inteebaa beena dabeedna ilaahay uga toobadkeena subxaanahu wa tacaala aad baad umahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu تأملت والدنيا بها العجب والعجب تروح بلا عذر وتأتي بلا سبب كل dadka jaarka inta badan rugda suuq iska jooga laakiin xogaal baan soo guriga shanaad ee igu xiga sikadeyda marka laga bilaabo anuu sikad baan u qoonaya sikadeyda marka laga bilaabo waxa saacan oo isku siganahay 5 guri guriga ugu kooneeyo markaan eego adigu wax ku soo birbirmayo ilaa 6 qof ku nool adigu xogay ma naqaan xogay ilaa imsi guriga gaas wallahi ilaa de sodoniyo ku gaas karaya halka deginta guriga saddexaad inta qof ku nool ma garan تأملت والدنيا بها العجب والعجب تروح بلا عذر وتأتي بلا سبب فلا ظلها دان ولو طال أمنها وسل عن هواها كل من ودها خطب وسل عن هواها كل من ودها خطب ومن كان في هذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل للذهب ومن كان فيها ذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل للذهب ومن كان فيها